بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وذيال كسور وهذا ورك عالم كي كوا صومالي ذا كود وين جرمال تي في دي سنة waxaa kamida musharax lagu dhaawacay Garowe oo xildhibaan loo doortay haddaba sidee wax ku dhacay musharax dhaawaca inuu u tartamo mid kamid kuraasta xildhibaanada golaha shacabka warbixin dhameystiran ayaan kaga haynaa Axmed Madoobe oo laba arrin kala hadlay safiirka UK ee Soomaaliya xilli booqasho ku tagay magaalada Kismaayo haddaba ujeedka safarkaas muxuu salka ku hayay warka Garmaal TV aad kaga bogo doontaan rag weesan oo toogasho ka geystay magaalada Muqdisho haddaba sidee ugu suurta gashay raggaasi inay toogtaan qof shacab xilli ciidamo fara badan magaalada Muqdisho xil saaran yihiin haddaba xaalka degmada dilka dhawaaside warka Garmaal TV aad kaga bogo doontaan toddoba qodob oo ra'iisul wasaare Roble ugu guuleystay madaxweyne Farmaajo iyo hal arrin oo ku fashilmay haddaba toddobadaasi qodob ee Roble ku fashilmay ayaan idin soo gudbi doonaa wararka kale Garmaal TV heesan waxaa kamid ah guux cusub oo ka soo baxaya Villa Soomaaliya iyo isbedelo siyaasadeed oo dhici doona saacadaha ugu soo aadan warka Garmaal TV aad kaga bogo doontaan intaasi وقار كم قضبض وقدر كرون ورك جرمال تي في يمكن ديار جروب أيها قدام مسيران عنكو بالله داود ديال مشرح الجودة وعجروي أو حلبان لو دورتي مقالة الجروي عاصمة ده دولة قبلات كبوتلنا يا وحمان تكبلا وضي دورة شده كراس كم الحلبان ده قلها شعب كصوماليا يدي كان دورة شده تهاي قدها مقالة ده سي دورة شده يا ما أنت القرشيني إلا له كرسي وحنا كرسي وجوه ريهاب بقول سجاش الله كوزو بحي سجوا داوع مشرح محمد فارح نور دير أو شلا وير قاعد ما يقادر روه بيسن أو كوبيكسن مقالة الجروي محمد دير يا الله حلو كرسي جاسي وحنا ترتمر هويدو محمد أو أسوق كان سلسية ملحيس ونقطه قدميها دور شدة بوتلنا يا شاعي إن حلبان محمد دير وهلا سجاشن يقعد هالكرويدي هل عد سيدو كان وحا حلابا لبعد شرح حلبان محمد فارح نور محمد دير أو شرح داوا كسو قاري قعن أيا كسو مقدور شدة وحنا ويرك لو قاعد سلكو هاي خلاف حقنا وكذا شيء كرسيga oo ugu dambeyn uu ku soo baxay sidoo kale rasaasta ay dawladdu hubaysan ku fuliyeen musharaxa ayaa waxa ku dhaawacmay laba kamid ah askarta ilaalada waheed sida ay sheegeen goobjoogayaal dhinaca kale doorashada ayaa haatan sii socon doonta waxaana la guda galay kuraasta xiga doorashada tilaabada ay Puntland u qaaday dhanka doorashada ayaa qayb ka ah fulinta heshiida doorashada ee lagu gaaray gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya markana daawadayaal waxa ay soo gudbinayaan rag hubeysan ayaa toogasho ka geystay gudaha magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa dil qorsheysan oo barqanimadii maantay kooxo beeska ka geysteen qaybo kamid ah magaalada Muqdisho kaasoo lagu beegsaday askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya dilka ayaa wuxuu si gaar ah uga dhacay xaafadda Jamhuuriya oo ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir sideen waxa xaqiijiyeen dad goobjoogayaal askariga la dilay ayaa ka tirsan ciidamada dowladda ku qada canshuurta ee loo yaqaan munisibiyada waxaana weerar gaadma ku qaaday rag ku beegsanaa mustoolado wararka ayaa intaas ku daraya in kooxda dilka fulisay oo baxsaday ee hore u sii qaateen qoriga askariga oo goor dambe midkiisa halkaas laga soo qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa sidoo kale gaaray goobta fal ka dhacay kuwaas oo sameeyay baaritaan dheeraada walooysan ciid gacanta ku soo dhigan maalmihii u dambeysay ayaa waxa magaalada Muqdisho ka dhacay weerar qaraxaya iyo dil qorsheysan si kastaba arrimaha dilka ayaa ku soo aadaya xilli haatan magaalada Muqdisho ka socda doorashada kuraas kamid xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashada tahay gobolada waqooyi daawadayaal wali waxa daawanaysaan warka Garmaal TV أحمد مدوبي ayaa laba arrin kala hadlaya safiirka UK u fadhiya Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magaalada Kismaayo kula shiray safiirka UK u fadhiya Soomaaliya yufdu hogaaminayo oo gaar magaaladaasi shirka oo ahaa mid ballaaran ayaa waxa goobjoog ka ahay wasiirka wasaaradda qorsheynta Jubbaland Maxamed Cumar Jaamac wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka cabdiraxmaan cabdi axmed iyo wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha axmed xuseen baraki axmed madoobe ayaa kala hadlay safiirka iyo xubnaha kala socday laba arrimood oo ku qatama abaaraha iyo doorashooyinka Soomaaliya qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu faahfaahiyay kulanka waxaan lagu sheegay diiradda lagu saaray saameynta ka dhalata abaaraha kulanka ayaa looga hadlay xaaladaha abaaraha iyo saameynta ku yeesheen ku nool deegaanada qaar ee dowlad goboleedka Jubbaland dowladda Jubbaland ayaa bil la soo dhaafay gurmad baaxad leh u sameysay abaaraha iyadoo kaalmo kala duwan gaarsiisay dadkii dhibaatada gaartay ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kale qoraalka ayaa marka lagu yiri kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimaha doorashooyinka golaha shacabka oo qaybo ka mid dalkaasi badan uga socda Jubbaland oo haatan ka jirto doorashada ayaa waxa ku dhuftay abaaro saameyn ku yeelatay shacab ku dhaqan saddexda gobol ee Gado Jubbada Hoose Jubbada Dhexe ay Jubbaland ku jirto marxalad adag oo ay dadkii abaaro ba'an ay saameeyeen xoolihii ay ka dhamaadeen macaluul badan ay jirto dadkii xoolo dhaqatada ah ay ku soo wada qaxeen magaalooyinka ayagoo raadinayaan nolol maxaa la dhahay iyo badbaado bini aadanimo ayaa maanta
oy taariikhdu tahay 2/2/2022 waxaa magaalada madaxda Jubbaland ee ku meel gaarka Kismaayo soo gaaray wafdi ay hogaaminayso safiiradda u fadhido dalka Ingiriiska Soomaaliya Madam Kate Foster iyo wafdi ay hogaaminayso oo ugu helinayo madaxa ama ergeyga bini'aadanimada oo qaabilsan dawladda UK arrimaha Soomaaliya wafdigaas ayaa waxaa qaabilay madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ku qaabilay qasriga madaxtooyada ulajeedada wafdigan ay u socdeen waxay ahayd sida ay u helahayeen xog dhab ah ee ku saabsan abaaraha wafdigan socdaalkooda wuxuu daba socday dadaala iyo juhdi fara badan iyo qaylidaan uu sameeyay madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo xiriiro badan uu la sameeyay beesha caalamka ayay daba socotay maantana si nabad ay noogu imaadeen xog aad u baahsan ee qoto dheer ee ku saabsan arrimaha abaaraha ku saabsanaan siinay runtii shirku si fiican u dhacay xog ku filanna way heleen waxay noo ballan qaadeen insha Allah inay dadaali doonaan inta dawladda UK-na tabarteeda ay ka soo qayb qaadan doontaa oo tabaaleynta iyo garab istaagga bulshada reer Jubbaland aanay ballan qaadeen in ayaga naftood sii sameyn doonaan advocacy ee olo badan sidii dadka loo caawin lahaa ayadoo laga duulay dadaalada madaxweynaha waxaan kaloo maalmaha nagu soo socdo aan sugaynaa waafuud kale ee caalami ah oo imaan doona si ama xaqiiq raadis u imaan doona arrimaha abaaraha sidii dadka loogu heli lahaa mustaqbalka soo socda xal waara sidii loogu heli lahaa si wanaagsan iyo afgarad ah oo ku dheehan is afgarad ayuu ku soo dhamaaday shirkeena waana hadda way amba bixin wafdigii aad iyo aad u mahadsantiin wadaal imankana guux cusub ayaa ka soo baxaya Finland Soomaaliya iyo isbedel siyaasadeed oo dhacaya wararka hoose ee ka imaanaya Finland Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulamo gaar ah la yeeshay siyaasiyiinta iyo xubnaha ka soo jeeda beeshiisa oday dhaqameed kamid ah xubnaha la kulmay madaxweynaha ayaa sheegay in isbuucan isku afgartay kuraasta taala gobol Gado aan la hoosgelin maamulka Jubbaland madaxweyne Axmed Madoobe ayaa weli ku doodaya in kuraasta Garbahare taala asaga la hoos keeno isla markaana uu talo ka yeesho balse taasi waxaa diiday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirkii hore qorsheynta Jubbaland Aadan Ibraahim oo xulsi oo siyaasad ahaan waafaqsan madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay in loo xilsaaray arrimaha gobolka Gado iyo xildhibaanada ka imaanaya oo xulsi oo kala hadlay arrimaha doorashada Fahad Yaasiin madaxweyne Farmaajo ayaa lagu sheegay in isku raacay sidii loo heli lahaa xildhibaano codka siiya nabadii nolol isla markaana kuraasta taal Garbahare noqdaan kuwa loo xiro dad gaar ah guux cusub ee warbaahinta Garmaal Helayso ayaa sheegaya in tartanka mucaarad kula jira madaxweyne Farmaajo doorashada gobolada Gado Baraawe iyo mid lagu dooranay gaalka ay Muqdisho ay noqdaan kuwa mucaarad ku soo dhex muuqanaya Axmed Madoobe ayaa isku dayay sanadkan hor istaago xildhibaan Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere oo gacan yaraha u ah madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin balse kursigaas la sii xiri doono oo dib difaacan karo shirar dib doorashada madaxweyne Farmaajo ayaa si degdeg ah uga bilaaba doona gudaha magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka waxaan lacag lagu bixinayaa qorshayaal ku jira sidii geed dheer iyo mid gaaban lagu ful lahay si nabadii nolol xukunka dalka ugu soo laaban lahayd hamigiisa Farmaajo isagoo leh ayaa haddana mucaaradku waxay bilaabeen isgarab si hoose xilli Xasan Cali Khayre uu budo gaar u tumanayo oo si gaar u ordayo si uu helo xilka madaxweynaha Soomaaliya oo hadda sheegay inuu taagan yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho Mudan Cumar Maxamed Cumar Finish siyaasi Cabdinuur Siyaad Cali Maxamed Geedi iyo qawaamirta nabadii nolol ayaa waxay madaxweynaha ku qarciyeen in Muqdisho ku awood badan yihiin isla markaana Hirshabeelle Koonfur Galbeed Galmudug kuraasta Banaadirga iyo midda gobolada waqooyi badankooda heli karto xildhibaano taabacsan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lama saadaalin karo waxa isbedel imaan doona balse Finland Soomaaliya xog heeso waxay sheegayaan in si walba xukunka dalka lagu soo celi doono madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana wado kulamo lagu taageerayo nabadii nolol uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la taliyihiisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir midaan dawad waa naga intaasa warkii Garmaal TV aad ka daawanayseen nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh